nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam waxa uu dhahay 4 waxyaabood oo jirka bini'aadamka jira u keenaya: hadalka badan, hurdada badan, cuntada badan, kulanka badan ee dadka kale aad la yeelanayso. 4 waxyaabood oo baabi'iya jirka bini'aadamka: walwalka, murugada, baahida ama gaajada, habeenkii oo aad waqti dambe aad seexato ama jiifsato. 4 waxyaabood oo nuurka iyo farxadda wejiga kaa qaada: beenta, xushmad darrida, ku adkaysashada waxa khaldan adoo og in aad ku doodo arrin adoo wax aqoona ama cilmi ku filan aadan u lahayn, xumaanta badan si aan cabsi ku jirin in aad u samayso xumaanta. 4 waxyaabood oo kordhinaya nuurka iyo farxadda wejigaaga: taqinimada, daacadnimada, deeqsinimada, in aad dadka caawiso iyagoo ku weydiisan. 4 waxyaabood oo irsaaqada yaraysa ama joojisa: hurdada salaada subax kadib ilaa qoraxda ka soo baxayso, salaad la-aan ama sunno la-aan, caajiska, khiyaanada. 4 waxyaabood oo irsaaqada kordhisa ama badisa: tukashada salaatuleylka, in aad mar waliba allah u toobad keento, sadaqada badan, xuska allah oo aad badiso. nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu dhahay in aad iga gaarsiiso dadka xataa hal aayad ha ahaatee maalinta qiyaamo ayay wax ku taraysaa. nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam waxa uu dhahay jooji wax waliba oo aad samaynayso marka aad aadaanka maqasho, xataa qur-aanka markaad akhrinayso jooji. qofkii hadla marka uu aadaanka dhacayo ma awoodi doono inuu shahaadada qiro marka uu dhimanayo. allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadika. duco aad u fiican ayaan kuu soo diray, bal qiyaas haddii 1,000 qofood ay akhriso markaad u dirto. nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam waxa uu dhahay xabata sawdada waxay daawo u tahay jiro kasta ilaa geerida mooye. qolka ama guriga uu yaallo weligiis faqri ma noqonayo. saliidda saytuunka waxay daawo u tahay 76 jiro. biyaha samsam waxa aad u cabtid ayay dawo u tahay. iniin kasta oo rumaanka ah waxa ay leedahay dhibic biyo jannaad. guri kasta oo timiri taalana gaajo ma noqonayso. fadlan sii gudbi si ay kuugu noqoto sadaqa tujaar. walaalkaaga ayaa u baahan inuu dhagaysto ama akhristo. fadlan waxaad ka helaysaa ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin marka aad maqasho ama aad dhagaysato codkan. ha noqon qof keligiis dhagaysta oo ka faa'iidaysta, ee waxa u baahan dad walaalaha ah oo ay arrintani ka qarsoon tahay. marka fadlan u gudbi qof kasta oo walaalka ah oo asxaabtaada ka mid ah si ay uga faa'iidaystaan erayadan qiimaha badan leh.